bari baa waxaa meel ku wada noolaa oday iyo wiilkiisi. wiilkiisa Axmed baa la dhihi jiray. odaygii baa wuu xanuunsaday, sakaraad buu noqday. isagoo sii dhiman rabo buu wiilkiisu la siltaamay. wuxuu ku yiri, wiilkaygu yacni markaa dhinto hanti kaa kama tegayo, lacag iyo xoolo iyo guryana kaa kama tegayo, waxaan kaa ka tegayaa hal waano. base wiilkii baa ii sheeg waanan waan qaadanayaa. odaygii baa yiri, wiilkaygu weligaa been ha sheegin, beenta waxay ka mid tahay dhaqamada xunxun ee qofka xun uu leeyahay. wiilka hayib buu yiri, weligii been ma sheegayo. odaygii baa dhintay, wiilkii wuu soo tagay. wiilkii markuu odaygii dhintay baa gurigiisoo joogay. wiilkii ile odaygan waxba muusan ka tegin. wiilkii gaajaa qabatay, abaar, wuxuu cunay wuxuu cabi waayey. base wuxuu sidii magaalada iskaga tago, magaalo galaadi shaqo iyo wax ka barbaaro. wiilku wuu soo socday, maalmuhu soo socday. isagoo jidka kusii jira baa ceel buu arkay. wuu yimi ceelkii, biyo ka dhan soo saray. base ceelka markuusoo dhawaad wuxuu arkay lafa dad iyo madaxyadu meesha ka buuxa. wiilkii yaabanaysa dadkan yaa soo galay. baa niman baxaga kusoo baxay ku yiri, waryahe ceelkan alfiid weyn baa ku jira, ka tagay uusan gocoyne, dadkan oo dhan sigaa dilay. base wiilkiina asigoo dadkii maqlay wixii sheegayaan oo waxaana arkay wuu iska dadaafiyey. wuu galay ceelkii, biyaha dhan soo saray. base wuxuu arkay dhinaca waxaa taagan alfiid weyn iyo gabadh qurux badan. alfiidkii baa ku yiri, waryahe dadka banaanka la fooga yaala ma aragtay? haa, anaa dilay. su-aal baan ku weydiinayaa, haddaad si fiican uga jawaabtid waa badbaada, haddii kalena waan ku dilayaa. base wuxuu ku yiri, waxaa sheegtaa aniga gabadha yaa qurux badan. wiilkii baa yiri, ada haddaa lagaa baqay adaa qurux badan, laakiin ilaah haddii laga baqayna gabadha qurux badan. base alfiidkii intuu qosol buu ku yiri, waa sheegtay su-aashii, gabadhiiba wiilkiiba soo siiyey. base wiilka saas kusoo tagay. sheekada haddaa ka heshaan leeg noo saara.